higankeni iyo qawlihi guud iyo guryanti wa horseedaheni wa horseedaheni dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wargaliyaheni jangoynta himilada kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad soo dhawaataan barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka waxaana noogu martiyaha barnaamijkeena maanta hantidowraha gudaha wasaaradda hawlaha guud mudane Khadar Daahir Cabdisalaan oo ka warami doona ruqsadsiinta shirkadaha dhismayaasha iyo qaabka loo marayo diyaanu ka eegno dhinaca lahaanshaha shirkadan iyo iskale waxa ay u qaybinaysaa abraacan u qaybinayaa ruqsadaha saddex qaybood shirkad muwaadiniin leedahay ama muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaliya leeyahay iyo shirkad shuraako ay ku yihiin muwaadin iyo ajnabi iyo shirkad وليه أجنبي وكليات حتى إنه كأنه حاجة أودنا أود أقوليهن إن مشاريع دفليان وحنو قيبنا 7 درجة A درجة B درجة C حتى بقى متول بنوع الصينية حقوق وواجبات وقارة ما دام مسكحة كوهينا أجنا إن أباهن هاي إن نبرك لنا شركة هني تسمعها أو إن مرنا بسوق كسارين ما دام كقيق قاتن رقالي وطنك قيبها سكال دوان ayuu u qaybinayaa waxaanu kulli si faahfaahsan uga hadli doonaa qaybaha dambe mid walba shuruudaha iyo habraaca loo raacayo marka la diiwaan gelinayo waa si wanaagsan haddii inta ka mid su'aashaas koowaad maxay yihiin shuruudaha diiwaangelinta qandaraasyada wadaniga ee dalka laga leeyahay qandaraasyada wadaniga waxay awood u leeyihiin in lagu diiwaan geliyo dhammaan darajooyinka A iyo B iyo C marka waxa la sameyn doonaa qiimeyn ballaaran iyo dib u habeyn shirkadaha dhismaha iyadoo la eegi doono shirkad waliba awoodeeda maaliyadeed iyo farsamo ee u leedahay fulinta mashaariicda dhismaha marka xogta asaasiga ee laga rabo laga tago ee kamid tahay kaarka aqoonsiga muwaadinka iyo laba sawir oo kora iyo inuu leeyahay xafiis shaqeeya cinwaan sugan iyo magac u gaar ah iyo caddaynta bilaaneed marka laga tago waxa la qiimeyn doonaa awoodooda dhaqaale iyo guurto ama maguurto iyo maamulkiisa bangiga iyadoo wasaaraddu si toos ah u baari doonto qoraaladaas tegi doontana xafiisyadooda hubin doontana in darajadan lagu diiwaan gelinayo ay leeyihiin awoodeedii maxay tahay iyadu diiwaangelinta kumeel gaarka ah ee qandaraasyada shisheeye haddii aynu sii wadno qandaraaslayaasha shisheeye ee wadanka waxaa jira qandaraaslayaasha shisheeye oo kusoo guulaystay mashaariic international bidding oo wadamo kale laga soo siiyey biddingkii marka wadanka yimaadaan waxaanay doonayaan in mashruuca ay ku guulaysteen oo keliyata ay wadanka ka fuliyaan markaa isaga laftiisu habraacan wuxuu sheegayaa qandaraaslahaasi doonayay mashruucan in wadanka ka fuliyo shuruudihii laga rabay waxaa markaa ugu muhiimsan horta in uu 30% kamid ah saan hore soo sheegnay uu ku bixiyo qandaraas hoosaadii uu ku siiyo shirkad wadaniya aanu horta keensan shaqaale aan aqoontoodii farsamadooda wadanka laga helayn bal ka waran waa yahay ka muwaadinka iyo ajnabiga ay wada leeyihiin iyadu maxay noqonaysaa ka muwaadinka iyo ajnabiga wada leeyihiin day wada yeeshaarto 50% ayaa inta badan muwaadinku leeyahay laakiin waxaa jira dad nidaamka systemka si qaldan uga faa'iideysta oo isku dayeynay inay balmaraan sharciga sidaa daraadeed si taa looga hortago oo waxaa jira shirkado fara badan oo ay muwaadin iyo ajnabi wada leeyihiin laakiin xaqiiqadu ay tahay in ajnabigu keligii leeyahay hadhow tole markay liisanka qaataanba wax tegaya nootaayo deedna nootayada kala qoranayaan waxaana loo nootayada ugu qorayaa inuu shirkadii ku wareejiyey ninkii ajnabiga inuu ku wareejimaya oo ajnabigu shirkadiis ka leeyahay muwaadinkiina uu iska yahay magacu yaalun meesha ku yahay marka shirkadaha noocaas oo kala ah wanaga nidhi in marka isbedel kasta dhaco oo xagga lahaanshaha ama farsamada ah in wasaaradda loo soo gudbiyo iyo in shirkadaasi aanay geli kareynin ama aanay ku tartami kareynin qandaraasyada hoose ee ay muwaadiniintu ku tartamayaan ee darajada C kaliya loo diiwaan gelinayo uun darajada A inay kaliya shirkad muwaadin iyo ajnabi wada leeyihiin waxay qaadan kartaa liisanka darajada A oo keliyata marka taas waxay u sahlaysaa shirkadihii muwaadiniintu lahaayeen ee wadanka laga lahaa inay kor u kacaan oo dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba waa si wanaagsan hore waxaan uga soo hadalnay diiwaangelinta kumeel gaarka ah ee qandaraasyada shisheeye maxay tahay iyadu diiwaangelinta qandaraasyada shisheeye ee rasmiga ah maxay kaga duwan tahay kumeel gaarka ah aynu hore usoo sheegnay waxay ka duwan tahay baa jira aynu horena u sheegnay inaynu u baahannahay aqoonta iyo farsamada dhismeeya ay leeyihiin shirkadaha dhismeeya si aan uga faa'iidaysano wadamada sheeka yimaada waxaana jirta mashaariic aad u waaweyn oo aanay shirkadaheenu awood u lahayn inay fuliyaan
sidaa daraaddeed ma diidi karayno ma odhan karno shirkado shisheeye uma baahnin laakiin waa inaynu yarayno saameynta taban ay ku leeyihiin dhaqaalaha ku yeelayaan ama ay ku yeelayaan shirkadii dhismaha sidaa daraaddeed waxaynu awood u siinaynaa inaynu diiwaan gelino shirkadii shisheeyaha inagoo siinayna laakiin keliya darajada A oo keliyata si aanay ula tartamin shirkadii kale ee BEC mashruuc kastoo ay fulinayaanna waxaa laga dhigi doonaa lacag deposit oo la dhigayo bangiga dhexe oo si haddii aanay u dhicin in fraud oo kale ama khiyaamo oo kale oo shirkadii shisheeye aanay wadankii isaga tegin mashruucaasi xooga soo noqdo si looga hayo magdhow u dhigma mashruuc ay fulinayeen waxaa kaloo aan isku dayi doonaa shirkadahan aan uga faa'iidaysan doonaa ajaanibka in aqoonta ay hayaan aan ka faa'iidaysano ardayda jaamacadaha oo kale in lagu xidho arday engineerina in shirkada dhismaha lagu xidho si uu farsamada iyo aqoonta uu uga soo qaadan karayo soolaaminka dad aragto mashruucan DPWL ay wadaan shirkad ajnabiya wado international farsamooyin fiican oo engineerina kale way isticmaalayaan marka aqoonta ay leeyihiin inaynu ka reebano ugu yaraan si taas u suurta gasho markaa waxaynu samayn doonaa barnaamij skill transfer oo ah in aqoontoodii laga soo wareejiyo oo injineer dalka looga faa'iideeyo waayahay su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena baynaynu gudageli doonaa warbixin guud naga sii darajooyinka qandaraaslayaasha iyo weliba isbedelka darajada qandaraaslayaasha darajooyinka qandaraaslayaashu waxay u kala baxaan darajooyinka soo socda marka loo eego qiimaha qandaraaska marka darajada E waxa ay qaadan kartaa qandaraas aan xadidnayn oo millions unlimited ama aan xadidnayn ayay qaadan kartaa waxaana yeelan karaya darajada E wadani muwaadina iyo mid muwaadin iyo ajnabi wada leeyihiin iyo mid shisheeye leeyahay oo ajnabi keliya taa hantida laga rabaana waa noqoto 10 bilyan oo shilinka Soomaaliland haddaba darajada B qiimaha qandaraaska ay qaadan kartay ugu badan waa noqdo 4 bilyan oo shilinka Soomaaliland waxaana qaadan karaya darajadaas muwaadiniinta oo kaliya looma ogola shirkada shisheeye ama shirkad muwaadin iyo shisheeye wada leeyihiin shirkada darajada C iyadu waxay qaadan kartaa 1 bilyan iyo wixii ka hooseeya waxaana loo ogol yahay inay qaataan muwaadiniinta oo kaliya ujeedadaan ku leenahay waxa weeyaan kor loo qaado ama la kobciyo shirkadaha maxalliga ah ee waddanka laga leeyahay qodobka ugu muhiimsan ee aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto waxa weeyaan in haddii ay isbedesho ama isbedel ka dhaco xogta shirkadan inay si degdega wasaaradda howlaha guud ula soo wadaagaan haddaba haddii isbedel dhaco qaab noocyo baa loo diiwaan gelinaya haddii uu doonayo masalan isagoo darajada B ahaa inuu darajada A noqdo ama darajada C isagoo ahaa uu darajada B noqdo sanadka dambe haddii uu doonayo noqdo waa inuu markaas soo buuxiyo shuruudihii iyo criteria-dii laga rabay inay darajada B uga baahnay qalab noocaasa looga baahan yahay darajada B darajada C qalab intaa leeg baa looga baahan yahay darajada E qalab intaa leeg baa looga baahan yahay marka haddii ay soo buuxiyaan sanad kadib waa loo bedeli karaa darajadii oo uu gudbaya darajadu doonay markaas darajadu doonay ama tii uu joogay tii ka sarreysay marka injineerada wasaaraddu waxay bilaabi doonaan inay ku sameeyaan kormeer ay ku sameeyaan shirkadaha dhismaha oo ay hubiyaan inay fulinayaan ama ay haystaan iyo habraaci loo dejiyo oo darajada shirkada darajada ee ku diiwaan gashanay ay leedahay qalabkeedii ay leedahay shaqaalaheedii ay leedahay waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena howlaha guud oo ay ka kaashadaan idaacadda raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyada Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan waxay la socodsiinayaan anigoo Anwar Xasan Dool tani kulanteena damax nigatayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh xigankeeni iyo qawlihii guud iyo guryantii waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheeni jaangoynta himilada